haddaba maxay tahay muuqaalka aan rabo inaan kula wadaago muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay waxa loo yaqaano fear af Soomaali ahaan waxay noqonaysaa cabsi su'aalan ku weydiiyay horta inta aan muuqaalka guda gelin waxaan ka codsanaa muuqaalkan su'aasha aan kugu weydiiyay inaad commentiga igu reebtid cabsidu ma wax lala dhashaa mase waa wax la barto please waxaan ka codsanaa inaad commentiga igu reebtid su'aashan jawaabteeda okay aynu guda galno marka muuqaalka sida uu ogsoonaayba ama dhamaan haddii aad tahay trader waxaad aragtaa trade markaa qaadatid in cabsi xoogan ay kugu imaanayso maxaa sababa marka cabsidaas waxaa qasaba inaad soo qaadatid boog iyo qalin si aad u noodgalaysatid qodobadan aan sheegayo waxaa kugu kallifay cabsida waxay tahay inaadan istiraatiijiyadaada ku kalsooneyn haddaba istiraatiijiyadaada haddii aadan ku kalsooneyn waxaa qasab ah waxaad dareemaysaa cabsi iyo welwel mar walba oo aad trade qaadatid ka bax gal ka bax gal ka bax gal ka bax gal because naftu ma ku siiso inaad trade-kaas sii holdhigaraysid ama inaad trade-kaas sii haysatidba waayo waxaad dareemaysaa cabsi xoogan ayaad dareemaydaa okay sidaas marka maxaa dhacay waxaa dhacay wixii iska ilaali lagu dhahay oo in badan lagu celcelin jiray oo ahaa over trading ayaa meeshii imaaday waayo waxaa arkaysaa adigoo intaasoo trade furtay akoonka haddii aad trade badan aad furtidne waxaa qasab ah in loss uu imaanayo loss haddii uu imaadane waxaa imaanayo emotion haddii uu imaadane waxaa qasab ah akoonkii inaad gubtid within a day maalintii idoo lagu guda jiro inaad akoonkii ku gubtid haddana adigoonan qaadan wax trade quman ah sidaa daraaddeed kalsooni darrada istiraatiijiyadaada ayay ku imaaday sidaa waxaan arkay in badan dad dhahaya trade-ka markaan qaato waa naxaa wadnaha ayaa why uu wadnaha ku dhigdhiglaynaa because ma haysatid istiraatiijiyad aad ku kalsoon tahay isku day markaa in istiraatiijiyadaada aad aamintaa number 2 qodobka labaad wuxuu yahay inaadan istiraatiijiyadaas haddii ay shaqaynayso aadan ku samaynin wax backtesting ah wax journalin ah aadan ku samayn taasina wuxuu ku horseedaysaa in cabsida aad baratid maxaa yeelay cabsidu markii aad baranaysid inta aadan trade-ka bilaabin ama inta aadan wax trade aadan furin cabsi ma aysan ku haynin sax laakiin markii aad trade-kii aad furtay aad tijaabisay waxaa ku bilaabatay cabsida marka waxa ku baraa waxay tahay journalna ma haysatid sidoo kale intoodna backtesting ma aadan ku sameynay sida wax u soo bartay ama sidii wixii aad u soo maqashay ayaad si toos ah waxa ula imaaday dhankaayo trading view-gii akoona u furatay akoonkiina sidaas ayuu ku qasaarayba marka isku day marka in istiraatiijiyad kasto aad isticmaalaydid in aad ku samaysid backtesting inta aadan la aadin wax dheema ah ama wax real ah ama wax funded ah isku day marka in istiraatiijiyadaas backtesting journaling intaas aad ku samaysid haddii intaas ay kugu shaqay weydo isku day marka hal kale inaad raadisid tada kale hal talo ayaan ku sii darsan lahaa oo ah istiraatiijiyadaadu inay leedahay entry iyo exit time iyo exit time istiraatiijiyadaadu haddii aysan lahayn entry time iyo exit time you are nothing sidoo kale intood waxaa sii dheer oo aan ku sii dari lahaa inay ku leedahay shuruudooyin ilaan shuruudooyinkan haddii la isiiyo trade-kan waa qaadanaa ani ahaan shuruudaha aan ku qaato trade-ka dhammaan dadka aan mentorka u ahay iyo sidoo kale intoodba asxaabteyda waa la sheergalayaa waayo waa muhiim marka aad tahay ICT trader in aad haysatid shuruudooyin sidoo kale intood entry time iyo exit time inaad leedahay adina sidoo kale intood sidaas ayaan ku dhihi lahaa haddii istiraatiijiyadaadu ay ku leedahay exit iyo entry waa quman tahay ku soco sidoo kale intoodna backtesting iyo journaling ku dar su'aashayda jawaabteedana waa idinka sugaya insha Allah in aad commentiga ku soo qortaan haddaba muuqaalkan haddii uu wax badan uu kaa saaciday waxaan ka codsanaa muuqaalkeena la gareysay sidoo kale intoodna aad sii sheergareysay si uu meel dheer u gaaro
waxaan ku jirnaa wadadii aan ku tagi lahayn 1k subscribers insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu noqdo maalin uun mid halkan loo soo wada fadhiisto channelkan khaasatan ICT strategy haddaba waxaan ku rajaynaa horumar iyo baraare insha Allah nabad ciid wanaagsan oo horumaraysa waay waxaan ku rajaynaa horumar iyo baraare issue good luck bye